wafdi ka socda gudida komishiga xuquuqul insaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaaminaya gudoomiye ku-xigeen Marwo Waris Abshir Diiriye komishineer ay ka mid yihiin Cabdirashiid Saciid Cindin iyo waliba Saleebaan Warsame Guuleed iyo Roode Axmed Yaasiin kulamo kala duwan la yeesheen gudoomiyaha gobolka Sool iyo waliba taliyaha qaybta booliiska gobolka Sool sidoo kale waxay kormeer ku sameeyeen xabsiga dhexe saldhigga booliis saldhigyada booliis iyo waliba xarumaha garsoorka ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool inta kadibna waxa warbaahinta la hadlay komishineer Cabdirashiid Saciid Cindin iyo waliba Saleebaan Warsame Guuleed iyo Roode Axmed jeedada u yimaadeen magaalada Laascaanood suganahay anagoo ah komishinkii xuquuqul insaanka qaranka hawlahayaga shaqeyn ku gaalaar bixinaynay gobolada dalka ee ka soo bilownay gobolka Saaxil Mandheera Togdheer Saraar Sanaag gobolkii Sool ee xaruntiisii oo hadda ku suganahay Laascaanood oo hadda ka bilaabino saldhiggii dhexe degmada Laascaanood xabsigii dhexe degmada Laascaanood aad baan taliye kugu mahadnaqaynaa hawshaydii shaqo komishiga xuquuqul insaanka qaranka sidaynu soo indhaynayno aad baa taliye u mahadsantahay waxaynu saaka joognaa jeelkii dhexe ee magaalada Laascaanood ee ciidanka asluubta taasoo waftigu uu kormeer ku soo maray sida uu komishineer sheegay cidi gobollo badan oo iminka xagga galbeedka uu heliya iyadoo guddigu maanta ay yahay guddiga cusbaa oo waliba ay isbarasho u sameynayaan sideen horeba u sheegnay xafiisyadii ay wada shaqaynta lahaayeen waxaan u diraynaa shaqaaqada ka dhacday hawdka dhumay halkaas ayaan u diraynaa baaq nabadeed haddii aan nahay komishanka qaranka xuquuqul insaanka waxaan leenahay halkaa waxaa ku dhammaaday oo dhibaato ku gaadhay dadkii ugu nuglaa waalidiinta ahaa dadka tafiirtoodii awoowo ayeeyo hooyooyin aabbayaal carruurta oo ah dadka ugu jilicsan waxaan leenahay dadka waxaan leenahay hal la joojiyo dagaalka ayaan ugu baaqaynaa maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa guddiga cusub ee xuquuqul insaanka komishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gabagabadina gudoomiye ku-xigeenka xuquuqul insaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Waris Abshir Diiriye ayaa iyaduna ku hadalkii waa la dhameeyay komishineerada iga horeeyay baa dhameeyay muxuu ahaayay waxaan u nimi iyo ujeedada oo dhan waa la dhameeyay ujeedadan u nimi waxay ahayd indhaynta iyo dhibaatada taagan iyo muxuu ahaayay gobolada kale waxa deertiina maanta ida haysata ayaan u nimi marka walaal waxaan leeyahay siday inantii iga horeysay komishineerada ahayd Roode Axmed Yaasiin Tiri waxaan leeyahay waxa disheen hooyooyinkii yaani habeen iyo maalin waan kasta xaweyna dhibaatada haysata maanta cid kale ma haysato yaani maanta ergaayinkaydu yimid bala waxaad kala haysataan ma jiro masiibadayda haysataa ilaahay baanu idinka magagalay ilaahay idinka fadhiisiyo ilaahay baanu baryaynaa awood ma haysano awoodda ilaahay baanu idinka baryaynaa wax kale aan qabanaa ma jirte ilaahay idinka farsamaya caloolxumada iyo balaada Allah idinka saaro garan mayno caloolxumada halka idinka timi halka idinka haysato garan mayno waxa idin haya garan mayno in maadar hayaalo waxaan ilaahay idinka baryaynaa ilaahay idinka baraajiyo warnin dhintay ma soo noqday maanta intiina nool waa Barkad Cumar Axmed warbaahinta dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood